qur'aanka kariimka wuxuu marar badan ka hadlay in maalinta qiyaame dadka loo kala saari doono laba jid, kuwa aadi doona jannada iyo kuwa aadi doona naarta. tani waa cadaaladda Allah subxaanahu wa ta'ala, maxaa yeelay adduunka aan ku noolnahay waa imtixaan, qof walbana wuxuu kasbado ayaa lagu abaalmarin doonaa. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu aayadiisa qur'aanka ku leeyahay فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ومعنى هذه قفكي كتابكي سميدك تلقسي وحال حساب دونا حساب فضل. صدوك الله سبحانه وتعالى وحو آيديس القرآن كله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ومعنى هذه قفكي كتابكي سجداشي سلقسي وحو نقن دونا مد هلاك iyo cadaab u sugnaaday. tani waxay muujinaysaa kala saarid cad oo ku dhisan camalka qofka uu shaqaysto adduunka. sidoo kale nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatay wuxuu yiri aljannata aqrab ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naaru mithla dhalika. oo macnaheedu yahay jannadu waxay qofkiina ugu dhowdahay sida xariga kabtiisa, naartana sidaas oo kale. macnaheedu waa in janno iyo naar midkooda la gaaro iyadoo camal yar la sameeyo, wanaag ama shar. sababta Allah u kala saarayo ayaa waxay tahay cadaaladda Allah subxaanahu wa ta'ala. qofka wanaag sameeyo waa abaalmarin, qofka shar sameeyana waa ciqaab. imtixaanka nolosha dunida waxaa loo keenay in la tijaabiyo qofka Allah subxaanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa rumeeya iyo kan diida. xikmadda Allah, jannada waa guri barako iyo abaalmarin, naartuna waa guri ciqaab loogu talagalay kuwa gardarada ku adkaysta. qofka muslimka ah waxaa la faray inuu camal fiican sameeyo kana fogaado dembiyada si uu ugu dhowaado jannada. qof kastana wuxuu leeyahay xurriyad doorasho, balse natiijadu waxay ku xiran tahay wax uu doorto. Allah yo naga yeel kuwa jannadaada aad ugu bashaarayso, aad u naxariisato maalinta qiyaamo. aamiin.